بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما واد السلامي ولا لا channel keena ku xidhan Soomaali Cooking Culture inta habeentii habeen wanaagsan inta maalinteena maalin wanaagsan goor kasta iyo goob kasta inuu joognana Allah subhanahu wa ta'ala khayr been weydiisanaynaa khayr iyo barako maanta waa maalintii afraad ee lockdown-ka aan ku jiray laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin qof ilaahay subhanahu wa ta'ala diin siiyay qof ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaqan qurux badan siiyay ma dareemayo xataa guriga hada inta doontaan ba ku xidhantiin ba alxamdulillah waa kulba geesu raac dhaqankaaga waa kulba geesu raac familygaaga noloshiisa kulba geesu raac diintaada iyo maasha Allah barashadeeda iyo hawlaheeda cilmiyada kale waxaad wada alxamdulillah inta ka bacdi walaalayaal maasha Allah maanta barnaamijkeenanu horta mahmaah baan isweydiiyay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa waxaan baqal bay dhahdaan baqal farda la fooftay ka barbaysmooda waxaad moodaa inaga Soomaaliyeed ay tii inagu dhacday oo baqal farda la fooftay ka barbaysmooda iyana faras baysmooda ma ogtahay wadankaynu tagnaba inagu wuxuu baynu ismoodnaa in iyagiin Ingiriis hadii lagu geeyo Ingiriis baad ismoodaysa Asian hadii lagu geeyo Asian baad ismoodaysa Arab hadii lagu geeyo Arab baad ismoodaysa yacni meel kasta oo aad leena geeyaba ka barbaan ismoodnaa markaas inta dhaqankeedii ka tagno ayaynu waxa meesha yaala siday tahay u qaadanaa حتى أنت وناكسن هتين كقعدان لهيني تدد باب ولا جايب حتى أنا أنت حنبك قعتان با حتى بس إذا نقطة تبع ميل كستو تكتب دقن كابو ووحى عادو با هنت إنت كفانتو أو عاد هايستو ما هايند نقطة بقال فرد الله فوفتي كبر بيسموده تحصيه دوا توانا دجود ما أنت ما شاء الله برنامج كينن وحوي هاي سدح عذر عد قبته qofka qaba inaad iska ilaaliso hadaad adigu qabtana inaad Allah subhanahu wa ta'ala barido inuu ka daweeyo saddexda cudur waa saddex cudur oo kula haraaya sharaftaada iyo maalkaaga iyo naftaada saddexdaba way kalaafanayaan saddexda cudur mid kamidi waxaan oran karaa 100% coronavirus uu ka xun yahay mid kamid waa ka xun yahayba kagaba darane Soomaali in yar oo Ilaahay naxariistunba ka badbaada cudurka in yar oo Ilaahay naxariistun ba ka badbaaday saddexda cudur hadaba maxay yihiin ama saddexda dabeecadood xun ee rabto inaad iska ilaaliso qofka la qabana aanad la saaxiibin ka fogow macnaheedu maaha qofka qofku haduu wax ku soo baahdo walaalkaayi waxa tarin maaha waxa weeyaan iska iga amalkiisa iska fogey ka waani haduu ka waansamayo ka waani hadii ka waantoobayso hadaan waxba ka qaadanayn adigu yaa lagu soo gaarsiin كو وحوين قفك قبا شاكيغا قونسي بين ورا كرا وقفك قونسي كبدن قفك قونسي كبدن هداد لا سocto ama hadaad adigu tahayba hadaad horta adigu tahay mar walba qof wuxuu baad sasunuugaysa maxaa la yiri maxaa la sheegay ya halkan soo maray maana lay hadal hayay maana lay jeeday maana layga waramayay maanta oo dhan amal kaleba malhid ilaa dadku madafkooda ilaalinaysa waxa la mid ah qofka qaba hadaad la saaxiibtay ama la socoto inteeda qofkaas wuxuu ku eegayaan maana ay hadal haysin maana layga hadlaayay maana lay tashanayay حتى كلمه هadaad taado wuxuu qoran maxaad saa u tidhi hadaad taa nabiga ku sallallahu wax kale iska day calayhi salaatu wasallam wuxuu qoranaya wamiyana ku salii jirin awalba maxal gor ma kuma salido mise kuma saliyo yaani dhan Allah la dhanaad uga amaan helaysaa ma jirtaba marka waani haduu wax ka qaadanaya ma haday wax ka qaadanayso laakiinse mar walba ka bixi maysid inaad tamaytan uga maan jeedin ma yacayn kana yahay ma sidana yahay ma ba qancin karaysid alxamdulillah qofka marka iska ilaali qofka labaad iska ilaalinaysa de waba adagtaysa inuu uga badbaadnaba waayo bulshadeena cudurkan 100 waxaan oran karaa malaha 90% uu haya dadka halagu kala badnaade culimo aanu dhaafin oo dad culimo oo aqaal baanu dhaafin iyo dad wax qarada oo caruur baanu dhaafin oo dumar baanu inoo dhaafin oo rag baanu inoo dhaafin oo saqiir baanu inoo dhaafin oo kabiir baanu inoo dhan Allah la dhan cudurkan inoo dhaafin ma jiro waa cudurka la qabiyaalad cudurkaas jirka bini'aadanka meel buu kaga dhacaa wuxuu kaga dhacaa mashiinka bini'aadanka dhaqaajiya waa wadnaha waxaan ognahay dad maanta gaar weydato ama aad gaar haysato gaarigaagu in kasta uu ka xumaaday rajuu leeyahay ilaa inta aanay mashiinkiisa aan cilad galin laakiin maanta gaariga mashiinkiisa cilad ka gasho makaan kasta wuxuu qoran maya kan dawo ma la iska tuuro ka tasho lacag hay iska galina gaari kala iibso qofka bini'aadanka ana mashiinkiisa waa wadnaha
qabyaaladu waxay ku dhacdaa wadnaha, way wasakhaysaa oo way madoobaysaa oo cidhiidhi bay gelisaa oo way yacni dhan allaala dhan ay u dhaaftaa ma jirto. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xubin jirka ku jira oo hadduu hagaago jirkoo dhan wada hagaagayo, hadduu xumaadana jirkoo dhan wada xumaanayo, waana qalbiga. qabyaaladu halkay naga asiibtaana waa qalbiga. imka waxaad arkaysaa qof maasha allah taqiya oo odhanaysa alxamdulilah, qofkan salaadiisa, soontiisa, yacni maasha allah tabaaraka raxmaan, khayrkiisa, quraan akhriskiisa siduu yahay maasha allah. rag iyo dumarku doonaba ha ahaado. mar allaala markuu maqlo tolaa iyo reer hebelaay ilaa in seydhku qofkanu ka bukaa, qofkanu qalbigu ka bukaa, mashiinka xanuunaya moogtahay. wax allaala wixiiba intuu tuurun baa lagu odhanayaa qofkii sawkii cararayba dee reer hebel yaa reer hebel iyo reer hebel baa caynkan iyo caynkan. laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah. wasawkii qofkan maasha maya waxaas ma jiraan, because wax xanuunkan ka haya qofka qalbiga weeyaan. markaa qofka hadduu qabyaalad yaqaano isagana ka fogow, isagana iskaga fogow. waani haddaad waanin karto, walaaltinimo hadduu wax kaaga soo doonto sii, laakiin cudur weeyaan la kala qaado, ka u xunayuu ku qaadsiinin. haddaad adigu qabtana ilaahi subxaana watacaala ka barya inuu ku caafiyo oo tahay qof soo jeedo dareemaya inaad cudurkan qabto. haddii allah subxaana watacaala kaa badbaadiyena salaatul shukri tuko, ilaahayna ka bari inaanu ku soo gaarsiinin intuu hayanu ka caafiyo. waana cudurka maanta dad iyo dal iyo duunyo si kastaba inoola degay. waa cudurka culimo iyo caamo intaba inaga laayay, intaba yacni qalbiyana qofku waa nool yahay, waa taagan yahay, laakiin wuu dilay, in seydhku ka dilay gudaha. cudurkaana isagana kaa labaad iska ilaaliya. ka saddexaad waxa weeyaan inta badan dhalinyarada ayaa laga yaabaa inay ku daganto xanuunka saddexaad. dhalinyarada waa qofka qaaditaanka yaqaana, qofka wax qaada. qaaditaanka waxaan ka qabadaa qofka xaditooga yaqaana wax xada. inta badan waxaynu arkaynaa qof dhalinyaraabaa dembi geysta, waxbuu meel ka qaadaa, ama dukaan buu waxyar ka qaadaa, ama guri ama meelunbuu waxyar ka qaadaa. dhalinyaro badan oo kaleo saaxiibtiiya iskala la socda, dhalinyaradaas hadhowta dembigaa way la galaan. waxa la odhanaya way la socdeen. markaa saaxiibka ama saaxiibada haddaad aragta inay gacanteeda wax qaadqaadayso, ka waani waxda walaala, ilaahay ka cabso, iska dhaaf, ma wanaagsana waxanu. haddii aad wadanka joogto tahay sharcigiisana uma wanaagsana, haddii ka ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inoo keenayna uma wanaagsana, iska daa. hadduu waana kaa qaadanay ama weyna kaa qaadanayso, haddaanay kaa qaadanayna ka fogow intii dembin ku gelin lahayd. badanaa inta caruur dembi ku gelaysa waxaana iyagu shuqul ku lahayn, oo ilmo kale iyagu saaxiibkood moodayaan, oo isagu fidmadan iyo waxaan ku jiraa uu hadhowto iyaga qoorta u gelinayo. ama adigaagan weyniba haddaad la saaxiibto qof saasoo kala, shaki baanad ka baxayn. xataa haddii adiga aanad waxba ilaahayba cudurkaa kaa badbaadiyo, shaki baanad ka baxayn, waayo qofkan aad og tahay. shandada halkan miyaan kaga dhaqaaqaa, halkanaan dhigtaa, halkan wax yaraan dhigayaa sii jeediyey, adigu shaki kugu ridaya ama aday shaki kugu ridaysaa. qofka markaa qaaditaanka yaqaanana iska ilaali. saddexdaa cudur markaa allah subxaana watacaala hadduu kaa badbaadiyo, qofka ama qofka la buka aad iska badbaadisood ka fogowdo, waad nabadgeli doontaa. qarnigan aynu joogna alxamdulilah rabbilcaalamiin. oo qabyaaladu u xun tahay, qabyaaladu number 1 ka tahay, ta inagana inala hadhay maanta. qof walo soomaaliyiba ama qof kastoo waxaan ku uhi maasha allah bartu doonaha jooga soomaaliyi uu garanayo maanta dhibaatadii leedahay. hadday qax tahay iyadaa horseeday, hadday geeri iyo balanbal tahay iyadaa horseeday, hadday kala qaybsanaan keentay iyo isnacayb iyadaa horseeday, hadday yacni tahay fakhri iyo gaajo laga bixi waayey dal iyo dadba iyadaa horseeday, hadday tahay nabaad guur ku dhacay xoolaha iyo dhirta iyo wadankaba deegaankaba iyadaa horseeday. haddaba inagoo intaasoo dhan sii og, oo laga yaabo intaasoo 1,000 kilomitiraad kasoo qaxday kusoo eriday inaad qurbo maanta qaxoonti ku taad la joogto, ayaa laga yaabaa haddana halkaa aad la joogto inaad weli xanuunkii qabto ood umadka la sii qaadsiinayso. iska weylo xataa in aad kuu koobnato inaad umadka la sii qaadsiinayso. marka allah subxaana watacaala hay naga badbaadiyo. allahna subxaana watacaala waxaynu ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo insha allahu tacaala. barnaamijkeena ha ka dhoofin dhaqankaaga meel kastaynu joognaba. maanta intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa. alxamdulilah, waana maalintii afraad ee lockdownka noogu dambeysay. waa maalin jimca maasha allah. beri waxaanu rajeynayaa in magaalada la furi doono haddii la haydmo, oo magaalada iyo ehelkii iyo dadkii iyo de maasha allah lays wada arki doono.
waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.